kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa la sheegayaa iyo koox ka tirsan oo hogaaminaya Mahad Karatay inuu heshiis u socdo taasi oo lagu faaqidi doono qaabka iyo waxyaabaha uu qabsoomi kara kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku soo biraan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo daawadayaal diiradda ku saari doona Mahad Salaad iyo hay'adda NISA oo ka gudoomay daawooyinka ugu faraha badnaa dowladaha Djibouti iyo dalkaasi Ethiopia waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku faaqidi doono oo aad kaga bogan doontaan dowladda dalkaasi Eritrea ciidamadii ku sugnaa ee Soomaaliyeed ayaa la sheegayaa inay ku xidhay malaayiin dollar taasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday wadamada jaamacadda Carabta ku jira inay ka gargaaraan oo ka bixiyaan lacagta faraha badan ee codsatay dowladda Eritrea qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal xubinteena ku faaqidi doonaa waxaana barnaamijka aan wax ka weydiin doonaa saaxiibkay Gooni oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Soomaaliya iyo Geeska Afrika. horta Axmed waa maasan tahay hadii aan ku bilaawno taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa maanta wuxuu ka gudoomay deeq ka timid dalka Ethiopia elborka Aadacade marka Mahad deeqdaas uu ka gudoomay elborka Aadacade ku gudoomay Ethiopia ka imaaday sababtan u beegsanayna waxay tahay Mahad Salaad shaqadiisa ma aha inuu gudoomo deeq ka timid dunida marka waxa la isweydiinaa Mahad Salaad oo taliyaha NISA ah soo deeq Ethiopia ka timid u gudoomay waliba deeqdaas ku socoto dadka dhaawacyada iyo musiibooyinka ka soo gaareen asagu ma ahayn hay'adda gargaarka iyo musiibooyinka ma aha Cabdiraxmaan Shukur Booskiis kuma jiro wasiirka caafimaadka socdo arrimahaas caafimaad shaqo ku leh dadka marka waxay isweydiinayaan Mahad Salaad taliyaha NISA ahaye gormo inuu gargaar gudoomo bilaabay ma wax macquul ma aha adoo taliyaha NISA inaan hoos isku dhigto gargaar Ethiopia kimid aad meesha u istaagto elborka isku sawirto marka waxyaabo ceeb ah waxa dowladnimada aan ku wanaagsaneyn way Axmedow waxa marka la isweydiinayo sidee Mahad Salaad uu ku gudoomay asoo taliyaha NISA soo ku gudoomay deeq Ethiopia ka timid meesha ma lacag lagu qaybsanaa ma wax kala meesha yaal see Mahad Salaad u gudoomay deeq dibad ka timid asagoo ah taliyaha hay'adda NISA oo shaqadiisa ma aha hub oo NISA loo soo diro ma aha waa arrimo sirdoon ma aha see marka hay'ad ku gudoomay su'aasha la isweydiina marka waa wax dowladnimada ceeb ku ah waana wax Mahad Salaad uu qalad ku galay ma garan karo sababta uu halkaas u sameeyay qaladkaas u sameeyay mid kale uu ku noqon doonana uma leeyahay inuu markale ku noqon doono arintaas oo kale Mahadow laakiin haddana waxaa la isweydiinayaa in Mahad Salaad ay dowladda Ethiopia inta badan ay ka didsaneed iyo waliba dowlado badan oo haatan la sheegayo in ma garanaysa uu Mahad Salaad doonayo in uu soo celiyo xiriirkii asaga iyo ka shakhsiyan marka la yiraahdo u dhaxeeyay dowladda Ethiopia arintaasi ma laga yaabaa in cilaaqo la leedahay horta waa hadii wada hadal iyo wax kale Ethiopia dhaxmarayaan waa iska caadi laakiin sideedaba taliye NISA inuu gudoomo deeq gargaar ah taas wax sharaf ma ah waa sirdoonka hay'adii dhan oo wadanka sirdoonka u eeda madax u tahay marka ina loorar iyo wax meel lagu soo daboolo calanka Ethiopia lagu soo daboolay wax ku jirna aan la aqoonno meesha lagu soo dabool kartoonka ina soo dul istaagto aad maanta isku sawirto ama daawooyin iyo wax lamid ah ina inta istaagto oo wasaaradda caafimaadkana ay joogto ina dul istaagto isku sawirto ceeb ay u tahay hay'adda NISA taliyaha NISA ceeb u tahay dowladnimada Soomaaliya ceeb u tahay wax fikir ah oo aan taas aan ka heesta ma ahayn Mahad Salaadna arintaas uu ku qaldan yahay hadii mar kale oo arintan kale oo sameeyana hadhow waa qalad ay keenaysaa adigoo wasiir arrimaha ah hadii arrimaha gudaha ka shaqeyso dadku ku qabsanay soo mogid marka waxaan shaqo aadan ku lahayn lama galo dowladnimada Soomaaliya sharafta ugu dhacaysa Mahad Salaadna waxaan leeyahay mar dambe iyo isku sameeynin waxyaabahaas oo kale waa hay'adii NISA Fahad Yaasin markuu ahaan jiray hay'adda NISA nin aragtiisa badneed ma aha maalinta oo doorashada la gaaray oo 5 sano dhameystirkii wajigiisa la arkay wixii ka horeeyay lama arki jirin sawir hore la iska soo qaadan jiray marka hay'adda NISA inay badaxeeda qarsato oo nin sirdoon maadaama aad tahay wajigaada iyo dadka aadan horkeena la rabaa maalin inaad maalin balcad sawirka lagu arko maalin lagu arko adigoo elborka dhex taagan oo gargaar gudoomaya waxyaabahaas oo kale hay'adda NISA wax u fiican maaha hadii la arko sawiraanta saxta oo hadla xataa dhib ma lahan laakiin waxa muhiim ah inuusan waxyaabaha oo shaqada oo isku lahayn inuusan gelin Mahad Salaad dhanka kale waxaa jira in ciidamo fara badan oo ku sugnaa dalkaasi Eritrea in ma garanaysaa dalkaasi Eritrea uu dalbanayo in ma garanaysaa ay malaayiin lacag oo kaga baxday ciidamada Soomaaliyeed ay bixiso dowladda federaalka ee Soomaaliya hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta waa sax dowladda Eritrea 4 sano ka badan ayay 4 sano iyo 4 bilood oo maleynaa inay gacanta ku hayaan ciidamadaasi
ciidamada 5,000 wixii ay cuni lahaayeen wixii ay xiran lahaayeen meeshii ku noolaan lahayn tababarkooda intaba waxaa bixisay dowladda Eritrea marka waxay u baahan tahay lacag magdhow ah oo la siiyo lacagaha maadaama qarashadaas ayada ka baxay waxay u baahan tahay in lacag ayada koow la siiyo marka labaadna ay keensadaan diyaaradihii iyo wixii lagu daaburi lahaa marka xasan sheekh maxamuud oo hadda ku sugan wadanka Algeria wuxuu la kulmay Cabditax al-Sisi oo ah madaxweynaha Masar wuxuu kale la kulmay rag fara badan oo qaliijka kamid ah wuxuuna u sheegay in dowladda Masar macnaha dowladaha ay sheeg caalamku ay ka caawiyaan lacagta Eritrea ay ku bixin lahayd dowladda Soomaaliya si ay ciidamada uga soo qaadato marka kulamo kala duwan ay u sheegay wuxuuna cadeeyay in lacag laga rabo ay sax tahay waxyaabaha kale oo la sheegay dhaxmarayna la iska daayo laakiin wuxuu dhahay lacag ay Eritrea naga rabtaa lacagtaas markaan helno ayaan la wareegi karnaa anaga oo ay sheeg aan ciidamadan la wareegi karnaa inta lacagtaas aan ka helayna ciidamada la wareegi karo dowladdu way cusub tahay 6 bilood 7 bilood ay jirtaa in dhaqaalena ahaan uma soo kabsanin miisaaniyad ahaan wali uma kabsanin marka waxaan u baahanahay lacag hadda waxaan la daalaa dhacayna mushaaraadkeena iyo waxaani laakiin wax kale awood oo dheeraad anaga aan bixin karna ma ahin lacag ilaa iyo $20 milyan 30 milyan oo dollar Ethiopia inay rabtaa Eritrea inay rabtaa la sheegaya taas ayuuna ka codsada caalamka sida uga caawin doonana lama oga Axmedow gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii aan fiirino dagaaladii ka socday ee lagu hayay kooxda al-shabaab ee shabeellada dhexe gobolka Hiiraan iyada waba laga sifeeyay dagaaladaasi waxaa la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA inay kooxda al-shabaabka ay surdoon ahaan ku dhex gashay oo ay kala jabisay oo ciidamo uu wato ninka lagu magacaabo Mahad Karatay ay gorgortan kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya arrimahaas bal nooga sheekay horta nimanka la yiraahdo al-shabaab dagaal ayaa ku socdo farxadkooda ay mar ka sii dambeeyo la arkayaa maanta waatay ciidamada Jacfar iyo hogaaminaya Cabdimalik Maalin oo asagana ah taliyihii hore danab ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waato maanta weerar ku qaaday dhankaas iyo baxo ciidamo kale macusley ayagana deegaanka Hiiraan ayagana ka tirsan waatay ceel hareer kula dagaaleen hadda ciidamo kale ayaa tardo iyo meelo kala qabsada leeyahay oo ayagana ku sii dhow dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa aadan yawaal marka al-shabaab dagaal ku socdo meel walba xaaladdu uu kaga adkaatay marka Mahad Karatay wuxuu si gooni ula soo xiriiray taliyaha Mahad Nisa ninka la yiraahdo Mahad Salaad taliyaha Nisa Mahad Salaad ay la soo xiriireen wuxuuna isbadayaa in maadaama isku reer ay yihiin inuu macnaha dagaalka al-shabaab lagula jiro la qafiifiyo dowladda Soomaaliya wada hadal ay la gashay Mahad Karatay si shakhsi ah wixii asaga la socdana oo dowladda ku soo biirin doono marka dowladda federaalka Soomaaliya ma iyadoo arrintaas ka jawaabayso Nisa oo Mahad Salaad wuxuu ugu jawaabay in marka hore ay arkaan shabaab dhexdooda isdagaalayo xabadii is saaray oo Mahad Karatay iyo shabaab is haysto oo halkan dagaal ka socdo markii la yiraahdo markaas waxa la yiraahdiga waa wada hadal oo lagu gali karaa laakiin inta shabaab xabad isku bilaabin oo shabaabka aad wali isku dhinaca ka dagaalamaysiin wax wada hadal oo anaga idinka noo dhaxayn kara malahan isku fikir ayaa tihiin wax heshiis oo idinka dhaxeeyna malaha marka sirdoona far badan halkaas u dirsaday sirdoonadii ninkaas hadda waxay xoog badan ay soo bixiyeen in soo gaarsiiyeen ugu dambeyntii Mahad Karatay wuxuu leeyahay anaga wada hadal dowladda aan la galna rabnaa si shakhsi ah waliba aniga inaan dowladda wada hadal la galan rabo iyo wixii taageersan marka waxa la dhahay haddaadan dagaal la gelin shabaab oo adiga iyo Axmed Abu Cubeede iyo rag ugu sareeyay Caldheer iyo dagaal idin dhaxmarin wax wada hadal aan kula geli karno malahan maalinta xabadda ah bilaabataan ayaa lagu aqoonsanaa inaad tahay amiirka al-shabaab halkaas ayna wada hadal lagu geli doona laakiin inta ka horeyso wax wada hadal oo dowladda Soomaaliya adiga ka dhaxayn kara ma jiraan la marka ujeedada dowladda federaalka Soomaaliya waxa weeyaan waa inay kala disho kooxaha iyo madaxda ugu sareysa ee al-shabaab xukuma Mahad Karatay maadaama sida la sheegay amniyaadka iyo dhaqaalaha iyo wax badan uu gacanta ku hayo soo ma moodid inta aan wada hadal la gelin in horta sideedaba kooxaha la kala dirayo Soomaaliya aad iyo aad Mahad Karatay waa madaxa ay maaliyadda waa ku xigeenka amiirka al-shabaab teeda kale waa madaxa amniyaadka ee ururka al-shabaab marka Mahad Karatay hadda meesha ka baxo xubin weyn ah meesha ka baxday teeda kale waxa la sheegaa shabaabka marka 3 loo qaybiyo 2 qayb oo kamid inuu asaga gacanta ku hayo oo halka qayb oo kale oo amiirka gacanta ku haya amiirka ugu sareeya ninka Abu Cubeede la yiraahdo marka hadday isku dhacaan dagaalna ay tagto Mahad Karatay ay ku awood badan sida wararka ay sheegayaan maadaama ciidamada koonfurta Soomaaliya dhan oo asaga u haysto beelaha daaroodka iyo hawiyaha inuu asaga gacanta ku haysto ee asaga taageersan laakiin raxweynta ay taageersan yihiin ninka ugu sareeya Abu Cubeede la yiraahdo iyo wixii dir ah oo la socdo waxay taageersan yihiin Abu Cubeede laakiin beelaha daaroodka iyo hawiyaha waxay taageersan yihiin Mahad Karatay marka saf ayaa saas loo kala jiraa marka waxa leeyahay Mahad Karatay waa ka awood badan yahay waa ka ciidan badan yahay mushaaraadka ciidamada xataa oo Axmed Diri oo asaga haysto ninka Abu Cubeede la yiraahdo waa loo diiday waxaan u diiday Mahad Karatay marka khilaaf aad u baan jiro dhowr mar xabad oo isku rideen haddana waxa leeyahay wili sirdoon oo Nisa ayaa ku dhex jiro taas oo ayna laga yaabo in haddana xaalad si adkaato dagaal toos oo wili fool in isku qaadaan ururka al-shabaab laga yaabaa markaas kadibna dowladda federaalka wada hadal ay saas ay kula galaan aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaan
kooxaha al-shabaab ee dagaalka lagula jiro iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya. daawadayaal barnaamijka nifaaqidaada intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid a waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.